kusoo dhawaada cashar cusub. casharkeena maanta waxaynu ka sii wadanaynaa meesha kii hore uga tagnay. marka chain rule qaanuunkeenu soo qaadanay. qaanuunka chain rule waxay niri haddaynu haysano composite function ka soo qaad f of g of x. haddaynu haysano function saan oo kale ah waxaynu niri derivative-kiisi waxay noqonaysaa derivative-ka function-ka dibadda outer function-ka derivative-kiisi inuu inner function-ka aanu taabanayn oo lagu dhiftay derivative-ka inner function-ka waa g prime of x. yani waxaanu baranay inuu qaanuunka saan yahay. marka videogan waxaynu ka bixinaynaa example kale. marka haddaynu ku bilowno example-keena koowaad kasoo qaad hadday haysato y equals sin 2x minus 5 maxay noqonaysaa marka derivative-kiisi. marka kan waxaynu arki karnaa in sin uu inoo yahay outer function-keeni, inner function-keena ay inoo tahay 2x minus 5. marka y prime maxay inoo noqonaysaa derivative-ka outer function-ka. marka derivative-ka function-ka sin muxuu noqonayaa cosine inuu aynan taabanayn inner function-keena 2x minus 5 oo lagu dhiftay derivative-ka inner function-ka. marka derivative-ka inner function-ka maxay inoo noqonaysaa derivative-ka inner function-ka waa 2x minus 5. marka 2x derivative-kiisu waa 2 minus 5 na waa constant waa 0. marka y prime maxay inoo noqonaysaa 2 cosine 2x minus 5. marka saan inoo noqonaysaa derivative-ki. okay aynu samayno example kale marka haddaynu haysano y equals cosine cubed x cubed minus 5 x square plus 2. yani waxaan haysanaa function-kan waxaynu u baahanahay derivative-kiisii. marka hore waxaa muhiim ah in aad ogaato cosine cubed x does not equal yani ma aha cosine angle-ku yahay x cubed. yani labatan isku mid maaha. kan wuxuu ka dhigan yahay cosine x all to the power 3. yani function-kan waa saan oo kale bas kanu waa normal waa yani power 3-gaanu xagasha ma saarna uu ka duwan yahay xagasha. marka labatan isku mid maaha. marka function-kan waxaynu u qoranaynaa cosine x cubed minus 5x square plus 2 all to the power 3. yani function-kan saanaynu u qoranaynaa. okay marka y prime maxay noo noqonaysaa marka function-kan y prime marka hore waxaan arki karnaa outer function-keeni inuu yahay qoyskan waa outer function-keeni, inner function-keena waa cosine-ka. marka inagoo chain rule isticmaalayna maxay noqonaysaa saddexda soo deji outer function-keenu derivative ku samaynayna cos inagoo inner function aynanu taabanayn. marka cosine x cubed minus 5x square plus 2. okay power marka waxaynu ka jaraynaa hal baynu ka jaraynaa waxay noo soo baxaya power 2. okay kadibna waxaynu samaynaynaa derivative-ka inner function-ka oo lagu dhiftay derivative-ka inner function-ka. marka halkan waxaynu arki karnaa inner function-kii isagii baa wuxuu ka kooban yahay outer function oo cosine iyo inner function oo ah polynomial. marka isaga naftirkiisa isagana waxaynu ku samaynaynaa chain rule. marka waxaynu samaynaynaa marka koowaad derivative-ka outer function-ka oo ah cosine-ka muxuu noqonayaa marka minus sin x minus sin inoo aynan taabanayn inner function-keeni oo ah x cubed minus 5x square plus 2. kadibna waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka inner function-ka. derivative-ka inner function-ka maxaa weeye marka waa polynomial-ka. marka waxay noqonaysaa kan waa x cubed marka waxay noqonaysaa 3x square kana waa minus 5x square waxay noqonaysaa minus 10x. marka saan aynu noqonaysaa. okay marka waa sii organize garaynaya saddexatan waxaan ku dhufanayaa bracket-kan gudihiisa. marka y prime maxay ii sii noqonaysaa yani saan waa uga tegi kartaa bas anigu waa sii organize garaynaya. marka saddexatan waxaan ku dhufanayaa kan gudihiisa kana waa soo hormarinaya. marka halkan maxaynu haysanaa minus sin x cubed minus 5x square plus 2. kadibna kana ku dhufanaya kan waa maxay waa cosine power 2 maadaama uu isagoo dhan yahay all square power 2 halkana keenaya. marka wuxuu noqonayaa cosine
squared x cubed minus 5 square x square plus 2. okay kadibna saddexdan gudaha halkan ku dhufanaya saddex markaan saddex ku dhufto maxay soo baxay 9x square saddex markaan ku dhuftona 10 waa minus 30x. marka final answer-kii saana uga tegaya. marka example-kan waxaynu ka arki karnaa qaanuunkan sababta loogu bixiyay chain rule. chain rule waa silsilad. marka waxaanu arki karnaa marka koowaad waxaynu haysanaa function-kan wuxuu ka koobnaa outer function iyo inner function. markaynu chain rule ku sameynaa haddana waxaan aragnay in inner function-kan naftirkiisa uu ka kooban yahay outer function iyo inner function. marka saas ku soconaysaa waa silsilad ilaa aad tegayso function-ka ugu dambeeya oo aan lahayn inner function. ilaa inta waa sii wada derivative-kii. marka sidaa darteed baa qaanuunkan waxaa loogu bixiyay chain rule ama qaanuunka silsiladda chain rule. marka saas sababta loogu bixiyay waa sidaa. okay marka hadda aynu sameyno example kale. marka haddaynu haysano y equals x plus square root of 1 plus x square all to the power 5. marka video qabo example-kan isku day kadibna video ku soo laabo. marka y prime waxay noqonaysaa outer function-keeni waa qoyska. marka maxay noqonaysaa 5 ka soo deji 5 inner function-ka taaban x plus square root of 1 plus x square power-ku waa 5 halka jar maxay noqonaysaa 4. okay kadib waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka inner function-ka. inner function derivative-kiisu muxuu noqonayaa halkan waa x derivative-kiisu waa 1 kadibna halkan waxaan ku haysanaa root. marka root square root yani marka haysano square root of 1 plus x square yani wax arkanaa inuu ka kooban yahay isaga naftigiisu outer function iyo inner function. waxay u qoran karnaa square root maadaama yahay 1 plus x square to the power half. kadibna muxuu noqonayaa half ka soo deji 1 plus x square half markaynu halka jarno maxay noo soo baxaya minus half. kadibna waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka inner function-ka. inner function-ka halka muxuu noqonayaa derivative-kiisi 2x. marka saan inuu noqonayaa binary. marka kan waxaynu ku bedelanaynaa derivative-kiisi muxuu noqonayaa sida tan oo ah. marka kan waa si simplify garan karnaa. waxaynu arki karnaa halkan inay tahay half lagu dhuftay 2 marka 20 isla baxayaan. kadib maxaa noo soo baxaya x oo loo qaybiyay square root of kan waa negative marka hoos baa dhiganaya 1 plus x square. marka kan derivative-kiisi saan inoo noqonaysaa. marka derivative-kiisi muxuu noqonayaa x loo qaybiyay 1 plus x square. okay marka answer-keeni saan inoo noqonaysaa. marka waxaan ku tusayaa markasta haysato root yani marka haysato ka soo qaad si aadan mar walba aadan saan u samayn. marka haysato square root waxay haysataa square root of u derivative-kiisi waxay noqonaysaa automatically 1/2 square root of u oo lagu dhiftay du dx. saan inuu noqonaysaa automatically. marka hadda aynu taa ku samayno yani kan aynu example-kan hadda aynu samaynay square root-keenu muxuu yahay u-deenu waa maxay 1 plus x square. marka derivative-ka waxaa dhahaysaa waa 1/2 waxaynu ku dhufanaynaa root-ka siduu yahay oo qoranayna. marka waa root 1 plus x square kadibna waxaynu ku dhufanaynaa derivative-ka inside the function yani root-ka waxa gudihiisa ku jira waa du/dx. marka inside derivative-ka kan maxay noqonaysaa waa 2x. waxaan arkanaa inay labo la baxayso. marka inoo soo baxay x loo qaybiyay 1 plus x square oo ah sida kan oo kale. marka markasta root haysato markasta square root haysato saana u samayn kartaa. okay marka qaanuunkan chain rule marka la isticmaalo waxa weeye yani haddaynu soo summarize garayno waxay isticmaalaysaa chain rule markii haysato bracket kale marka haysato oo power leh yani power n wuxuu rabo noqon kara. marka kan haysato waxay isticmaalaysaa chain rule. root wuxuu rabaa ama yani square root ama hadduu rabo ahaa cubic root isagana waxay isticmaalaysaa chain rule. sidoo kale marka haysato
trigonometry functions sin cosine kuwa marka haysato iyagana waxay isticmaalaysaa chain rule sidoo kale waxa chain rule isticmaalaysaa marka haysato exponential e to the power x marka exponential haysato isagana waxay isticmaalaysaa chain rule sidoo kale marka haysato logarithmic functions ln of x oo kale marka haysato waxay isticmaalaysaa chain rule marka inuu hadda kuwa kan video kan ay ku qaadanay exponential iyo ln video soo socdaan ku sharxi doona yani video u gaar aynu sameeynaa exponential functions iyo logarithmic functions kuwaas maxay leeyihiin properties u gaar ah bay leeyihiin marka iyagana waxaan ku sameeynaa video soo socda video kan hadda wax su'aalaha ka qabto comment ku weydii video hadda ka heshana like subscribe asxaabtaadan la wadaag